one light goes out. It's that one there, that corner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habeen wanaagsan. Maxaa la horta nin kala sharxo laba geel jiro. Geelkii oo Soomaaliya waa geelka rasmiga oo la dhaqan jiray oo markii loo baadan la qalanaa la cunaa. Bad geelkan America waa geelkii fool xumaa waa kii yelowga cayaalka xoolaha subaxdii lagu qaaday oo iskuulka lagu geenay lagu soo celinay. Waa arkaysiin all yellows waa middle of the night xilli waxaa lagu jiraa oo freezing ah qabow ah dhulku arkaysa barafka yaalo. One of the baraf waa kana meeshaan u yaalaa suuqaga waa arkaysiin. Let me see baraf waa arkaysa qaarna waa kuwan meeshaan ay yaalaan xilli waxaa lagu jiraa qabow ah so freezing ah arag wax jabay hataa ma aha barafka suuqa Kenya waa arkaysa so adag ku yahay maxaa la dhahaa waa baraf aad u adag mana jabayo. Balooni lagu ciyaari karaa which I do right now because kawo waxay ugu jiro oo adag good ah soo jibinaya arag. Alhamdulillahi rabbil alamin wa all the buses way kacaan taraagiyada way kacaan gaariyaha way kacaan waa xilli qabow ah freezing ah oo bini aadan joogin saacadan ama jeedi karin ama shaqayn karin. Waxaan u sheegi lahaa walaalayga gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaali oo back home ku dayacsan wadankooda joogaan fursad iyo jaanis wadanka siinin laba ayaa u dhaxaysa haddaba nafsada wax u qabanin inaad dalkaaga wax u qabatid dadkaaga wax u qabatid diintaada islaamka wax u qabatid. maanta aan arkay dunida islaamka diintu waa iska laciifay noqotay waxay iska noqoto wax la iska sheegto constitutionka kan gaalka xun oo xarkiisi iyo joogu ku kaadinay inuu ka fiican yahay dunyada maanta waa nasiib daro ayaan daro anigoo wadankan gaalada Westernianka aan joogo. You can imagine diintaysan ugu dhaganahay maraan xaj u aaday Sacuudiga ayaan u aaday qolo walaalayga ah markaasaan waxaan arkay diin laabanimada meesha ku hayaan waxa la yiraahdaa xaj waligeena ma aadin 20 sano 10 sano ay ma joogaan Madiina meel ay ku taala ma aqaanayn soo ruuxu waa inuu Ilaahay aaminaa marka koow markii labaadna maxaa lahaa waa nafsadiisu waa inuu u dadaalaa aaran inay arkaysiin in kale gloves on wataa waa middle of the night waa arkaysi frozen ah so waxaan u dhihi lahaa haddaad nafsada u shaqayn karin dalkaaga u shaqeey hatta dadkaaga u shaqayn kartid diintaada u dadaal taasi waxay tahay sabab iyo ajar horta shaqadu sideedu waa ajar iyo sawaab arano dadka Soomaalida dibadaha la keenata waxay ka jeclaadeen in meelaha dawladda guryaha dawladda la karo ceeri welfare la cuno la isku daldalo la dhaho warta shaqo ma taala meesha ugu kala wad ayahan ugu kala wad dadka